السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيري واندين سلامي سلام كتب أخيري ما توحى ربا عشركي كل شيء جاي حيسيس كان كل سمين إني ما توحى خادن دون عشر كوسابسن PHP horta farastii waxyaalaha ugu muhiimsan ee PHP laga rabo marka rabto inaad barato waxa ugu muhiimsan inaad haasato dhowr thing ama dhowr elementiyashaas oo aan idinku sheegi doono halkan oo linkigoodana aan idinku siin doono description-ka. Okay, khayr horta marka rabtid inaad PHP aad rabto inaad barato aniga waxaan isku dayi doonaa boqolkiiba 80 inaan PHP waxaan ka aqaano inaan idinka fahansiin doono 20 kale qofka markuu wax baranayo horta muhiimadu ma ahan in macallin ama ii sheeg qof kale videos markaad fiirsanayso muhiimadu ma ahan in hal meel aad ku ekaato. horta siba markii aad baranayso programming language ama luqad walba ahaato ma ku haboono hal meel inaad ku ekaato. markaad rabto inaad horumariso aqoontaada waxbarashadaada horumarinta aqoonta aad u leedahay waxa aad baranayso waxaa muhiimada la siiyaa inta badan inaad more things aad raadiso waxyaalo badan. waxaa la qofka intuu ka raadis badan yahay uu ka cilmi badan yahay. qofka marka la dhahayo waa cilmi yaqaan wax kale kuma dhaamo kaliya wuxuu ku dhaamaa more research uu sameeyo wax badan uu raadiyay waxa uu baranayo kaliya ma ku ekaanin wax kale ka sii dheer. marka book aad soo qaadato macallin aad ka soo qaadato kaliya ha ku ekaanin buuga macallinka. horta first thing waxa ugu horeeya waxa waaye buuga macallinka uu ku soo siiyay horta meel iska saar. marka meel saarto kadib raadi waxa kale oo aad u baahan tahay. so marka aad rabto inaad diyaariso program PHP waxyaalaha loo baahan yahay waxa kamid ah oo main muhiimada la siiyo. horta marka hore waxaan ka bilaabi doonaa waxyaalaha loo baahan yahay ama applicationada ama softwareda loo baahan yahay marka aan rabno inaan sameeyno program ku saabsan PHP. muhiimada ugu horeyso program PHP markaad sameynayso waxaad u baahan tahay inaad hesho wax loo yaqaano SAMP wax kale ma qabanayo wuxuu ku sameyn doonaa maadaama PHP ay tahay server friend ay tahay wuxuu u baahnaan doonaa in la helaa host. server hadaad maqasho waa meel xog la geliyo xogta meesha la gelinayo waxay u baahan tahay meel lagu keediyo. keedistaas la keedinayo waxaa loo bixiyay magac ku saabsan serverinka oo lagu magacaabo wax loo yaqaano host. magacan host loo kasaayo ama loo yaqaano host wax kale ma qabto kaliya waxaa lagu keediyaa sheeyo ama elements ama waxyaalo badan imageska. sidoo kale waxaa kaloo lagu keediyaa wax loo yaqaano folders waxyaalo badan files text wax walba lagu keediyaa. marka si aad programkaaga uu kugu shaqeeyo oo URL-kaaga hosting aad u isticmaasho waxaad u baahan tahay programkan halkan kaaga muuqdo oo SAMP ay ku qoran tahay. linkigan soo dhigi doonaa SAMP ku qoran tahay in aad isticmaasho waa muhiim. the first priority la siinayo marka aad baranayso PHP waxaa loo yaqaanaa SAMP inaad isticmaasho ama fahamyo kale oo SAMP oo kale ah. sidoo kale waxaa jiro WAMP oo iyadana loo isticmaalo qaabka SAMP oo kale ku siinayana hosting oo free ama hosting oo offline local host. marka cashirkan magaciisu wuxuu noqon doonaa PHP and MySQL. marka hore waxaan baran doonaa PHP waxa ay tahay. markaan PHP aan meel saarno sida variableska loo sameeyo iyo sida functionska loo sameeyo iyo sida arrayda loo sameeyo markaan fahanno waxaan u gudbi doonaa inaan isticmaalno database kaasoo noqon doono MySQL
kadibna waxaan bilaabi doonaa project complete oo ka bilaaban doono from scratch meesha ugu hooseyso aan geyn doonana meesha ugu sareyso oo lastly